بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داود يا ليد الهانتين بميل كستا جوجتان كسو دوادا برنامج كيني دور جوجتا برنامج كينن وحينو كعينا قهرطة إيشياء وحينو كسو قادن دونا شبيلكا سيبيريا دولكا برفكا وصاحبكا نولشونا كوادك تهي balse marka hore fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan subscribe garayso guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo galino una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinaha iyaga dooro calaamadda jeliska amba gambaleelka sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaaraan fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo intaa haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay Siberia waa dhulka barafka u saaxiibka ah nolosha kala duwanaanshaha duurjoogta kuleylku nooshu iyo tan barafku noolku waa laba kala fog dhan kasta markaynu ka eegno shabeelka Siberia waa shabeel xajmigiisu aad u weyn yahay waa bariga fog ee dalka Russia ilaa laga soo gaarayo dalka Turkiga inta u dhaxaysa hadda 500 oo ka mid ah shabeelka ayaa ku nool dalka Russia gaar ahaan Siberia kuwaasi oo nolol ahaan ay ku adag tahay deegaankani shabeelkani waa 250 kiilo culeyskiisu dhulkanu waa dhul aad u baaxad ballaaran aadana u fidsan barafna leh qabowgu aad buu u badan yahay balse shabeelku wuxuu leeyahay muruqyo cajiib ah oo uu ku samayn karo xawliga cararkiisa hadda waxa uu rabaa in uu ugaarsado dhulkan waxa lagu qiyaasaa 40,000 oo mayl oo isku weer ah shabeelku ugaarsigiisii maanta markii uu bilaabay waxa uu helay ugaadh ku filan oo uu cuni karo muddahaatan laga joogo 200 oo sano waxaa dhulkan ku noolaa kumanaan kun oo shabeel
dadku markii ay kordheen ayay yaraadeen shabeelladii halkan ku noolaa. boqolkiiba 97 ayaan maanta ku noolayn goobtan ama dhulkan Siberia. waxaa ku nool hadda mid lagu qiyaaso ama shabeel qiyaastiisu tahay ilaa 4,000 oo shabeel. waxaana lagu qiyaasaa dhulkan 40,000 ee mayl ee iskuweerka ah inay 4,000 ku nool yihiin. 200 oo sano ka horna waxaa ku noolaa 10,000 oo aan tiradooda la soo koobi karin. dhulkanu waa dalka loo yaqaano Nepal. seerahanna waa seeraha Bardia. waa goob cagaaran. waxaa ku nool 10 shabeel oo deegaankan cagaaran kula nool duurjoog kale. duurjoogta halkan ku nool waxaa iyaduna ka mid ah deerada iyo lo-ogisidan oo ka duwan ta Afrika. waxay leedahay geeso aad u dhaadheer oo ka duwan tii Afrika, aadna u xoog badan. dhulkan waxaa Rabbi ku manaystay biyo joogto ah iyo webiyaal weliba aan tiradooda la qiyaasi karin. lo-ogisidu mid kasta urta ayay ku dareentaa xayawaanka soo dhowaada. waxaanay hadda dareemeen in shabeelku uu aagoogan ka dhow yahay. shabeelku aad buu ugu dhowaaday lo-ogisida. wax yar ayuu u jiraa. waxaanu doonayaa inuu lo-ogisidan ugaarsado mid ka mid ah.
durba loogisidii markii ay dareentay way isu qaylisay waanay kala yaacday balse shabeelkii wuxuu qabsaday mid ka mid ah. shabeelku wuxuu aad ugu daran yahay xagga boodistiisu waa mid aad iyo aad u sarraysa wax kastana uu ku qaban karo. loogisidan uu ugaarsaday waxay 6 jeer ka weyn tahay shabeelkan balse shabeelkani waa mid mucjiso ah. goobtan laftigeega waxaa ku nool kooxo maroodiyaala kuwa laftigoogu shabeelku wuxuu ku yahay halis ku ag nool. waxaa kaloo iyaduna ku nool seerahan bardiya xayawaanka loo yaqaano wiyil. xayawaankan wiyisha waxayse soo shabahaan oo isku dhow yihiin wax yarna ku kala duwan yihiin xayawaanka duurjoogta ah ama beribiyoodka ah ee loo yaqaano jeerta. waxay leedahay gees adag oo ku dul yaalla sankeeda. waxaanay ku dishaa wax kasta oo soo weerara. waxay leedahay harag ama saan adag oo jirkeeda dusha ah kaasi oo aad iyo aad u adag. iyada laftigeega shabeelkani wuxuu ku yahay halis aad u weyn. si kastoy ahaato shabeelkan waxaa caawinaya cawska dhaadheer xilliyada qaarna laga dhex garan kari maayo cawska waxa uu eekaadaa shabeelka. dhulkan baahadda weyn ee dalka Nepal fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan subscribe garayso guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo gelino una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinaha iyaga. dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka. sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaadhaan. fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo. inta haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay. waa tahay daawadayaal
waa qaybteennii hore intaas ayaynu kaga gudbi doonaa shabeelka Serbiya dhulka barafka u saaxiibka ah intaynu qaybta labaad ku kulmi doonno waxaan idin leenahay dhammaantayo nabadgelyo